waxaan go'aansaday inaan ka arguto dhimashadii ninkayga anigoo xiriir saaxiibtinimo la samaynaya ninkii dilay kadibna waan guursaday ugu dambayntiina waan ka argoostay haweeney degan waddanka Bakistan ayay xireen booliska maxkamadaynta kadib waxaa loo diray xabsiga Jakarta ee ku yaala waddankaasi Bakistan gabadhan waxay sheegtay inay muddo 3 sano isku dayeysay sidii ay ugu argudi lahayd ninkeeda oo la dilay qorshayaal kala duwan ayaa ay u sameysay arintaasi wilaayad khan oo ka tirsan dambi baarayaasha saldhigga booliska degmada Bajwa ee waddanka Bakistan ayaa BBC-da u sheegay in kiiskan uu ahaa mid aad u adag balse uu markii dambe ku guuleystay ninkii qabi jiray haweeneydan eedaysanaha ah oo magaciisa la oran jiray Shah Samin wuxuu dhintay 3 sano ka hor laakiin ma cadda waxa sababay geeridiisa in la dilay ama inuu si dabiici ah u dhintay toona laakiin xaaskiisa waxay sheegtay inay heshay xog ay siiyeen shakhsiyaad ku saabsan in ninkeeda lagu dilay cirbad sumaysan falkaasna uu ka dambeeyay nin ay saaxiibo ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Gulista hase yeeshee ma jirin wax war ah oo booliska looga sheegay geeridii ninkaasi saraakiisha booliska ayaa sheegay in uusan jirin saldhig xilligaasi la geeyay macluumaad la xiriira in ninkan dhimashadiisa uu qof kale ka dambeeyay taasoo horseedi lahayd in la baaro ciddii dishay Shah Samin sida laga soo xigtay booliska markii uu dhacay dilkii ninka lagu magacaabay Gulistan waxay ciidanka amniga maqleen dhawaaqa rasaas isla markiiba waxay askar u direen inay soo ogaadaan waxa dhacay wilaayad khan ayaa hogaaminayay askartii u bax markii aan tagay goobta waxa yaalay meyd dhiig badan ku dhex jiray hal xabadna waxay uga dhacday madaxa midda kalena dhinaca midig xilligaasna haweeneyda la tuhunsanaa waxa ay fadhiisay meydka agtiisa booliska ayaa isku hareereeyay gudaha iyo banaanka guriga ayuu jiray wilaayad khan oo ahaa ninka kiiskan baaray dadkii ayaan dhinac u leexnay waxaana bilownay baadhitaan iyo inaan caddaymo ka aruurino goobta sida ay boolisku ku warameen haweeneydan waxay sheegtay in ninkeeda hore ee la oran jiray Shah Samin uu ahaa qaxooti ka yimid waddanka Afghanistan wuxuuna ku noolaa gobolka Kunar ninkeeda wuxuu ka shaqayn jiray Peshawar waxayna ku noolaayeen nolol farxad leh iyaga iyo gabdhahooda ninkeyga wuxuu saaxiib dhow la ahaa Gulistan ayay haweeneydii ku tiri warbixinta ay siinaysay booliska waddanka Bakistan waxayna sheegtay in ninkeeda lacagaha u dhiiban jiray saaxiibkiisa Gulistan maalin maalmaha kamida ninkeyga ayaa yimid guriga isagoo sheegay inuu caafimaadkiisu fiicneyn Gulistan ayuuna ka codsaday lacag laakiin Gulistan wuxuu u sheegay inuusan haynin lacag sida ay sharaxday waxa ay sidoo kale sheegtay inuu Gulistan guriga ku keenay dawooyin ay ku jiraan irbado iyo kiniiniyaal mid uu siiyay tan kalena uu kula taliyay inuu goor dambe isticmaalo markii uu cirbada qaatay kadib ninkeyga xaaladiisu way sii xumaatay dhulka ayuuna ku dhacay dad ayaa ula cararay isbitaalka laakiin wuu geeriyooday ayay ku tiri booliska haweeneydan waxay booliska u sheegtay in ay dadkii kale weydiisay sida uu ninkeeda ku dhintay laakiin ay u sheegeen in saaxiibkiisa Gulistan uu iyada lafteeda sun ku duri doono maadaama ninkeeda xaaladiisa ay isbedeshay cirbadaha kadib markii ay heshay xogtaasi ayay go'aan ku qaadatay inay u argudo ninkeeda sida ay boolisku sheegeen haweeneydan waxay muddo 6 bilooda isku dayeysay inay argudsato laakiin waa ay ku guuldareysatay kadibna waxay ku fikirtay inay qorshe kala raadiso qorshaha labaad wuxuu ahaa inay u dhawaato Gulistan oo ay saaxiib la noqoto si ay u waxyeelayso inkastoo Gulistan Khan uu lahaa xaas iyo hal wiil haweeneydan waxay go'aansatay inay xiriir jacayl la samayso ugu dambeynna waa ay isguursadeen waxay booliska u sheegtay in ay Gulistan ku soo xirigelisay iyadoo u sheegaysa inay haysato lacag ayna doonaysa inay gaari iibsadaan oo ay nolol farxad la galaan xilli lagu jiray ciid ayuu arooskoodu dhacay waxayna isla degeen guriga walaasheed laakiin maadaama ay ulajeedo kala lahayd gurigaasi uu anfici waayay markii dambe waxay ninkeeda cusub ka dhaadhicisay inay isla degaan guri ku yaala deegaanka inayaad kale oo ku yaala waddanka Bakistan maadaama ay halkaasi ku noolaayeen keligood mararka qaarna iyada keligeed looga tagay guriga waxaa laga maarmaan noqotay inay qori ama bastoolad soo sharciyeystaan si ay isaga difaacaan ciddii soo weerarta waxayna bastoolada ku soo iibsatay lacag dhan $180 3 sano ayay ku qaadatay qorsheynta
dilka ninkii ay aaminsanayd inuu dilay ninkeeda. ugu dambaynna waa ay ku guulaysatay. boolisku waxay sheegeen inay ku jirto hadda xabsiga oo ay u xiran tahay falkaasi maadaama aan wax caddayna loo hayn inuu ninka ay dishay uu yahay ninkii dilay ninkeeda. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro channelka subscribe saar, muuqaalkana like saar. mahadsanid.